waayahay maxaa ka soo kordhay xiisadii dagaal ee ka taagnayd Puntland 24 saac ee la soo dhaafay waxaan idin la wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay wada hadallo u socday Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ciidamada kumaandooska daran ee uu hogaaminayo General Jimcaale Jaamac Takar ee fadhigoodu uu yahay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland is-afgarad la sheegay inay gaadheen iyo ergadii uu kala dabqaadaysay xogihii ugu dambeeyay ee soo kordhay waan idin la wadaagi doonaa waxaan dhanka kale dul istaagi doonaa saacadihii Dani uu u qabtay dhammaan ciidamada sheegta dawladda federaalka Soomaaliya wuu dhamaaday ciidan ilaa iyo hadda isa soo dhiibay oo rasmi ah oo la hayana ma jiro hadaba maxaa qorshaysan Dani maxaa laga filan karaa iyadana waa soo qaadan doonaa dawladda federaalka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaan ka shaqaynaynaa ciidan federaal ka tirsanna kuma arki karno ama hal askari oo federaal ka tirsanna indhaha ma saari karno waa go'aankii ka soo baxay Saciid Cabdullaahi Dani sidee la isku waafajin karaa in adoo ka shaqaynaya midnimada ummadda Soomaaliyeed adoo ka shaqaynaya dawladda federaalka ama ummadda Soomaaliyeed federalismkii u dhaxeeyay adigoo u tartamaya madaxweyne Soomaaliyeed in aad haddana tiraahdo hal askari oo ka tirsan federal kuma arki karo deegaanka madaxweyne aan ka ahay bal iyadana dhinacyo kala duwan ayaan ka istaagi doonaa Dani waxa uu ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo kadib markii uu la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi isla markaana uu qabsaday saldhigyadii ciidamada dawladda federaalka ee kala duwan ee halkaasi ay ku lahaayeen iyadana ujeedada Dani uu halkaasi u tagayo ayaa soo qaadan doona waxa dhanka kale dul istaagi doona xaggay ku dambeeyeen ciidankii BSF saldhigii Boosaaso waa laga qabsaday saldhigii Gaalkacyo waa laga qabsaday xaggee ayay ku dambeeyeen iyadana waan eegi doonaa soo dhawaada idinkuna aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay 48 saac ee la soo dhaafay Puntland waxay ku jirtay xiisad dagaal dagaallo ayaa ka dhacay meelana wax dhibaato kama dhicin hase ahaatee dhaqaaq ciidan oo xoogan ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka bulshada iyo waliba ganacsiga wuxuu dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida wada ogsoonayba Dani ayaa weerar ku qaaday saldhigii ugu weynaa ee ciidamada BSF ay halkaasi ku lahaayeen saldhigii gacanta ayuu ku dhigay ciidankii kale ee dawladda federaalka ee ku sugnaa magaalada Gaalkacyana iyagoo dagaal kuwa BSF maaya kuwii kale iyagoo wax dagaal aan la kulmin ayay iskaga bixin xeriyihii ay ku lahaayeen magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland dhanka Galmudug ayayna u wareegeen sidoo kale magaalada Boosaaso saldhigii ugu weynaa ee ciidamada BSF ay ku lahaayeen guud ahaan Puntland iyadoo wax dagaal uusan ka dhicin ayay la wareegeen ciidamada taabacsan Saciid Cabdullaahi Dani intaas kadib Dani amar ayuu soo saaray waxa uu yiri 48 saacadood ayay haystaan ciidamada dawladda federaalka sheegtay ee Puntland gudaheeda ku sugan inay isku soo dhiibaan haddii ay isa soo dhiibi waayaan iyaga iskaranaya buu yiri 48 saacadood waa dhamaatay wax ciidana oo isa soo dhiibayna ma jiro markii laga reebo ciidankii BSF oo iyagu qaybna Dani isku soo dhiibay qaybna xuduudaha Galmudug iyo Waqooyi Bari ka tallaabay oo labadaasi maamul kala galay hadaba Dani maxaa laga filan karaa Dani wuxuu diray horta isa soo dhiiba markuu lahaa ergu kala diray xagee uu kala diray erga wuxuu u diray ciidanka General Jimcaale uu hogaaminayo ee duleedka magaalada Garowe ku sugan ee kumaandooska daran ergana wuxuu u diray ciidamada ku kala sugan Carmo Goldogob Gaalkacyo duleedkeeda oo waxa weeye xogaa ka yara dheer adigu bari iyo nugaal ciidamada ku kala sugan ee dawladda federal sheegtay ee qaarkood ciidamo beeleedyada markaasi is-abaabulay federaalka ku biiray ayuu ergo u kala diray ciidamadu qaarkood ergadii waa ogolaadeen sida wararku ugu soo gaarayaan General Jimcaale oo ugu adkaa ishana lagu hayay dawladda federaalkuna goordhow ay u magacawday taliyaha qaybta konton afraad ee ciidanka xoogga Soomaaliyeed dhammaan Puntland taliyaha isku haysta ayaa wararku waxay tilmaamayaan inuu ogolaaday in ciidanka kumaandooska daran
ay kusoo biiraan puntland ama ciidanka deni ay kusoo biiraan isagana jago iyo dhaqaale wuxuu raba la siiyo ciidamadana iyagoo tiknikadooda iyo hubkooda wata in la liiskareeyo oo lagu daro ciidanka daraawiishta puntland ee deni ka amar qaata ma xuba in amniga la ilaaliyo inuusan dagaal ka dhicin inaan la dagaalamin in dadkaan la isku laynin in ciidamada dhalinyarada soomaaliyeed aan la isku halaagin arrin fiican weeye nabadu wax ka fiican ma jiro hase ahaatee in la heshiiyana ceeb uma arko genaraal Jimcaale inuu dib ugu laabto ciidankiisa isagu uu aas-aasay ee asaaskiisa uu lahaa ee daraawiishta puntland inuu puntland amnigeeda ka shaqeeyo isagoo sargaal waxay dowladdu u soo magacawdayba intaa bay ahayd in amniga ummadda Soomaaliyeed uu ka shaqeeyay ahayd oo taliyaha loo soo magacaabay ma ahayn beer iifale waxay ahayd inuu ciidamada hogaamiyo uu amniga ka shaqeeyo laba diidana haddii arrinta ay soo baxdo ay dhab noqoto xogta cusub ee soo gaadhay arrin fiican weeye hase ahaatee laba arrimood bay cuntada weyday deni inuu yidhaahdo midnimada ummadda Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya wadajirka ummadda Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya madaxweynahan uu tartamaya dadka Soomaaliyeed baa badbaadinaya haddana uu yidhaahdo hal askari oo federaal sheegta puntland laguma arki karo arrintaas isku kay qaban weyday bal talow dadkay daawanayo ila dhageysto ila fiiriyo oo adoo madaxweyne maamul goboleeda adigoo waxa weeye madaxweyne federaal u sharaxan inaad tiraahdo haddana hal askari oo federaal kuma arki karo puntland bal arrintaa micnaheedu maxay tahay arrinta marka isku kay qaban weyday horta waa arrintaa ee la yaab kale bal adiga ay daawanaya ee muuqaalkan aad ku soo gaaray fiirinaya ee hadalka dhageystay bal isqabadsi madaxweyne maamul goboleed baan ahay midnimada ummadda Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya wadajirka ummadda Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya dowladnimada Soomaaliya ka shaqeynaya madaxweyne federaal baan u sharaxanahay haddana hal qof oo askari ah oo federaal sheegta iyo hal qof oo siyaasi ah oo federaal taageersan puntland laguma arki karo oo haysa soo dhiibaan waa hadalka deni ee bal horta iswaafajiya taana iyadana waa qodob yaalla oo dadka Soomaaliyeed inay bal arrintaas aragtidooda ka dhiibtaan ay u baahanay marka waxaan idinka codsanayaa qaybta commentiga inaad soo wada qortaan hadhowna qofka meeshuu joogo weliba magacaada iyo halkaad joogtid iyo aragtidaada isa soo raaci waxbana qoraalka ha dheeraynin gaabiya waan soo qaadani waa ballan insha allahu tacaala muuqaal dheer ayaana ka samayn doonaa way intaasi markii laga soo tago ciidamadu wada hadal ayaa lagula maqaya ciidanka Carmo ku sugan waxaa la xaqiijiyay inay sheegeen inay diyaar u yihiin inay soo biiraan hase ahaatee shuruudo ayay ku xidheen waxay sheegteen in taliyaha ciidankaas hogaaminaya iyaga laga soo dhaxulo oo taliya loo magacaabo waa qodobka labaad in xuquuqdii ay helaan waa qodobka saddexaad ee saraakiishii hadashay ee miidiyaha ku jirtay inaan wax raacashaa oo revenge ama argudasho aan lagu samaynin oo iyo weliba siyaasiyiintii odayaashiiba deni gudaha puntland haddii marka intaa la iswaafajiyo Jimcaalana arrinta soo baxaysa ay dhab noqoto waxay ka dhigaalan tahay dagaalkii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo puntland u dhaxeeyay deni ayaa ku adkaaday intaa horta waa dagaalka iyo faahfaahintiisa in yar baa dib ugu noqonaya marka deni wuxuu rabaa puntland oo go'doon ku jirta puntland oo qof ka daba hadli kara uusan jirin puntland oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhacsiiyo puntland oo ku koobo inay tahay qabiil ama hal qoys ayuu puntland la doonayaa deni puntland ta dhaqaanay xadaarada badnayd xadaariga ahayd dowladda jeclayd ummadda Soomaaliyeed jeclayd midnimada jeclayd doorka federalismka qaybta ka qaadan jirtay lama rabo puntland sidaan lama rabo deni sidaan lama rabo deni wuxuu la rabaa puntland oo go'doon ku jirta in doorashada federaalka ay dhacdo markay doorashada federaalka dhacdo hadduu doonto uu soo waayo inay dib u soo noqdo uu puntland meel ku ooto ee ugu oodaato oo aysan helin mashaariicaha federaalka oo aysan helin dheefta federaalka oo aysan dadku ka faa'iideysanin dowladnimada iyo isdhexgalka oo aysan noqonin meel dadka Soomaaliyeed ay imaan karaan aragtidoodana ku dhiiban karaan aysan noqonin ayuu la rabaa deni taasuu la rabaa
axmed madoobe iyo isaga ayaa isku aragtiya. axmed madoobena haddee waxa weeye waa ninka halka magaalo haysta, hal magaalo iska haystaa, halka magaalo ayuu doonayaa inuu la barbar dhigo oo la mid ka dhigo puntland weynayd ee xor tahay. marka de axmed madoobe ayaa ka aqli badiyay dani, sababta axmed madoobe meel kale ku dhunuxsado ma haysto, waa hal magaalo kaliya oo Kismaayo la yidhaahdo. laakiin ninka magaalooyinka haystay ee wadanka dhan haystay ee waqooyi bari dadku aadi jireen ee Somaliland aadayeen ee xagga aadayeen galmudug aadayeen ee xagga banaadir aadayeen saa loo kala socday, waxaa ka wada hiiraan aadayeen saa loo kala socday, ayuu xayndaab oodab buu ku ootay. xayndaabkaasuu rabaa in dadka reer puntland ay ugu jiraan oo qofna uusan ka daba hadlin. dani saasuu doonaya. dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer puntland waa inay horta taa ogaadaan. waynu eegi doonaa, xaaladdu way socotaa.